waxa sameynayaan wax weeye one family baa ku noqnoqonaya hal qoys oo beesha harti kamid ah yaa dhaxal ahaan ugu noqnoqonaya maanta waa ciise bari waa cismaan maanta waa cumar waxaan rabaa filinkaasi laga gudbo isbedel la helo in ay dadka kale reer Puntland ay maanta Puntland soo taagaan si Puntland loo badbaadiyo because 23 sano ama 24 sano dad hoggaankeeda hayay waa ku fashilmeen waana ku baabiyeen dad iyagii baana isku dilay 150 qof baa boosaas ku dhintay hanti aad u farabadan baa ku duntay saalax maygaag iyo garow gaalka ee national garow caasimadii iyo laasaanadna qoriyay dhuunta iskaga hayaan habeen iyo maalin xabad dhuunta iskaga jirtaa hadeer markaan anigu joogay dhowr iyo 30 waa dhimatay boqolaal dad ku dhowdhowna waa dhaawacmeen waa meel cidlaa oo buuro dhakadeeda cid kale celinaysa iyo cid u socota iyo cid wax ka qabanaysa iyo maamul ka hadlaya iyo dawlad ka hadlaysa midna ma jirto odayaal nabadoonna oo mar horeba la tuuraan u malaynayay la falay waaba la sirxay Puntland dhaqan bay lahaan jirtay odayaal bay lahaan jirtay dad laga xishooday lahaan jirtay maanta waaba la caayay iyaga baa la caayay waxa saa u galay dhulka dhigayna waxa weeye maamulkay dhisteen karaamadoodii ku ciyaaray sharaftoodii ku ciyaaray miiqaamkoodii dumiyay iyaguna waxay noqdeen dad u hoggaansamay dulmiga oo waqtiguna ku raagay taariikhduna ku raagtay marka iyaga laftigooda waxaan leeyahay ilaahay sharaftoodii iyo karaamadooda u socoliyo barta ismadii loo duceeyo Soomaali dhaqan baynu ku lahayn sharaf baynu ku lahayn maskab baynu ku lahayn laakiin maanta al ilaahay un baxalkeena og bahashaas Puntland la yiraahdo ama maamul goboleedkaas Puntland la yiraahdo waa in laga soo bilaabaa 1998 wixii la wada dhistay 19 agaasimo oo isku jifiya afarta taliye oo isku jifiya wasiirada siday u kala badan yihiin ama dhaqaalaha kala haystaan wadaagtii wasiirkii maaliyadda waa maqlaysan media habeenado dhan wixii ka socday dadkii xaq iyagii maxaa ku dhacay inuu leeyahay xaq iyo xaqaba maxaa ka dhintay war ma Ethiopian baa la diraya waa yaabe bariga hore loo jeeday Ethiopia Soomaaliya sawa xaq maxaa ka dhintay xaq maxaa ka dhintay waa maqlaysan Puntland waa in aan raadinaa odayaashii dhaqanka isimadii waa inay qaataan waajibaadkoodii siyaasiyiintii nin baa idin caydsaday nin la yiraahdo maxay u bixisay caasha diiriye dani waa ka bedelayna diiriye leena diiriye idin caydsaday annagu xildhibaanadii hadda xilka ka tagay baana maalin qura intuu nala soo hadlay nama odhan Puntland waxaasay u baahanta wasiirada ku noqday oo haddana dalku waa fulin waa xildhibaano iyo wasiiro 4-5 jeer bay wasiirada dawladda federaalka u duuleen war wax noo sheeg dalka maxaa ka rabtaa war dawladda maxaa ka rabtaa war warqadan wax ku qor ma farmaajo waxa uu la hortaagnaa warday annaguna farmaajo Soomaaliya dooratay annaguna xilka kama qaadi karno Soomaali weyn oo dhan baa dooratay annagu mooshin kuma ridi karno maalin qurana oo dhan waxaasay Puntland u baahanta warqad bay wasiirada hor dhigeen war maxaanu ka keenaa dawladda federaalka oo ku maqan maxaad u baahanta waa diiday farmaajo sidii habeenkii dhawaad aad arkayseen sidii habeenkii hore Sawlahay madaxweynaha telefoon ay soo diray ninkaasi waa nin ciil qaba Puntlandna dubi Soomaali wayna wax tari maayo qof ciil qaba ma hogaamin karo Soomaali mana hogaamin karo bulsho Puntland waxa ka hadhay gobolka Boosaaso iyo gobolka Garowe iyo magaalada kala badan ee Gaalkacyo iyagina marxaladda ku sugan yihiin Ilaahay baa og marka sabanbixinta Puntland reer Puntland oo dhan bay u baahan tahay dib u heshiisiintii 1998 in la bilaabay u baahan tahay markaan ka soo hadlo inuu yiraahdo xamar baan aadaya waraada diiriyow 66 xildhibaan ma aha halkani iyo barxad yareeda Garowe ma aha soo Muqdisho la yiraahdaa Soomaali weyn baa la yiraahdaa 329 xildhibaan baa codaynaya 66 ma aha waa run waad ku riyootay inaad 66 xildhibaan madaxweyne ku noqoto laakiin tan ma yaanu ku leenahay ummadda Soomaaliyeedna waa uga digaynaa annaguna khalday Puntland buu burburiyay Soomaali weyn ayuu idin burburin waa nin ciil qabana bulsho iyo qaran iyo dal ma hogaamin karo laba beelood oo yaryar oo walaalihiisa oo gobolka Boosaaso iyo gobolka Garowe iyo qaybta Gaalkacyo yuu hagi kari waayay Sool ma joogto Sanaag ma joogto Buuhoodle ma joogto mar hore ay waxaasi daaqada ka baxeen marka waxaan leenahay baarlamaanka waxaan la hadlayaa cusub ee annagana bedeli doona waxaan leeyahay baarlamaanow Puntland oo hiili shacabka Soomaaliyeedna oo hiili wallahi billahi tallahi idinku horeynaya baarlamaanka idinka saaraya inta reer Puntland idinku idinka saaraya war dadka hadda tiraad subaxaas uu leeyahay hal laga saaro baarlamaanka
marka waa deni waxa uu sameeyay wuxuu wataa dhiigii Boosaaso iyo Garowe iyo Laascaanood buu gacmaha ku wataa cid dooranaysaana ma jirto waxaan rabaa reer kastoo reer Puntland oo halkan fadhiya inaad xildhibaankii dhiraadisaan oo gacanta ku dhigtaan kursiga beel baa iskale deni male hadduu xildhibaanka u dhacay waa ku hanaynaynaa waa kuugu ducaynaynaa laakiin shacabka ugu hiili oo Soomaali ugu hiili oo dalka ugu hiili shalay waxaan arkayay xildhibaano dhalo la taxaabayo Boosaaso loo sii wado nin seedigiisa wado darradna waxaan arkayay 35 uu hogaaminayo mid geedi la yiraahdo oo agaasimaha qorsheynta u ah iyo baaqan maamulka xafiiska wuxuu yahay wariyaahay baan ku dhig labada Ciise Maxamuud baan wadida dadkan maxaa u hogaaminaysaa labada xildhibaan Ciise Maxamuud baan wadide maxaa bulshada kale u hogaaminaysaa wuxuu watay dhulbaahanta wuxuu watay warsangeli wuxuu watay Cismaan Maxamuud wuxuu watay Laylkase wuxuu watay Arab Saalax war mawaalanta ay raaw Ciise geediyow labada Ciise ma wadide war sidaa u sii daabiiday oo hay ka goyne labada Ciiseba ma wadida maxaa beelaha kale u wadaa awr table cid kasta waa wati geedi buu soo dhibo qandaraaska soo siiyay marka waxaan leenahay walaalayaalow Puntland waa soo gaabinaya aniga haddii Puntland la dhisay la maroonka anigu Puntland markaan kursiga u dooranayay Khaatumaan ahaa oo Khaatumaan dhisayay oo anigu Puntland mar horaan ka tagay markay dalkayga iyo dadkayga godoomisay ee maamul goon u goosato aan mar hore naf iyo maal bay isku leeynay uu noo dhiibay maalintaas anigu Puntland ka tagay haddana kursiga ay geeyay halkayga ma Khaatumaan ka sii wadaya anigu haddii la isu iman waayo Puntland la wada leeyahay la dhisan waayo aniga Ilaahay Khaatum igu ogyahay waxaan rabaa dadkaas oo liyasan ugu dhasheen xaq bay u leeyihiin maamul bay xaq u leeyihiin inay maamulkooda dhistaan oo ka baxaan maamulkan fashilmay ee halka qoys maamulanaayo halka qoys oo waliba ma jeerteen barkiisa ay maamulanayaan iskaga baxaan baan rajeynaya assalaamu calaykum